جزاك الله خيرا. سؤاشنا سدح بقول أفرتني السجال وحلي سائل كان السلام عليكم شيخو وحن لي هاي هالحاس وحنا يقف آذو قدرا حق قشة أود أن حاس كله قرص مليه حلية ذا يقبض معذور كتهي أما أي ومشى تهي هدي أن أدل قادم ويمليه كرا حاس كيجا كالي بيه يجسو صار قعنت هذا أما شركة جميل كم إذا أني كم إذا وأنا هين محل كترنك لما له هذا كو أنفعيس أهلا وسهلا استمناغا وبيها إن نينكو قعنتي سيساقك كانوا كاس لما وقالوا ما بأبنانا حيالي وكور إيمانيا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك وحن حاسنا هين الدون طالينا أنا هين نيكي الشهوة إستغاك كيناي واحد قد بيبو ألي تبارك وتعالى تامر كوانينكو مركو تشيركيسا أماك عنتيسا استعماليو واستمناق ليلا أما السيقيسي وحنا إيدان السلام عليكم أما إنو حاس كيس تشير كذا أما قعنتيدا وإستغاك كينو واحد بملا طيب معايا لي شرعا واحد يدي يمشرو استمتاع مباحة أبو كميليه النبي قالنا صلى الله عليه وسلم سيدة بخاري ومسلم يسوع صارين من حديث عائشة وحيليهن دمر كالنبي صلى الله عليه وسلم كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم دمر كيسة مدود وعادة قبط حدود دمع النبي صلى الله عليه وسلم إنه تاتابته wuxuu amri jiray markii caadadu ku cusub tahay bilow tahay oo si xoog badan uga socoto marag gunta buu dhigi jiray yaani intan awrada ah marag gunta buu dhigi jiray kadibna nabiga sallallahu alayhi wasallam jidkeeda kale waa taataaban jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka taataabashada maxaa ka dhalanaya in xaaskiisii taataabto soo biyo ka imaan maayaan marka waa istimtaaca iska banaan taataabashadaas muxuu ahaayay saas daraadeed ba ahlul cilmiga ay mas'alada si khaasaba u taabteenba oo ay leeyihiin ninku inuu jidka xaaskiisa meel aan ahayn meesha la diiday ninka laftiisa meesha uu iska soo reebo sooma oo meesha iyada saxarada iyada taas waa mamnuuc xadiis far badan baa ku timi laakiin meesha waxaan ahayn inuu biyo isaga keeno oo shahwadiisa ku guto way iska banaan tahay al-imam ibn hajar al-haytami tuhfatu al-muhtaj ka wuxuu ku leeyahay imaamkii shaafiiciga wuxuu ku leeyahay in gacanta haweentiisa uu ninku biyaha isaga soo saaro wuxuu leeyahay waa mubaax waa iska banaanta wakadalika waxa sidaas oo kala dhahaya shaykh al-islam zakariya al-ansari imaamkii isagana shaafiiciga aha al-ghura al-bahiyya wa isaguna wuxuu ku leeyahay inuu xaaskiisa gacanteeda ama jirkeeda isaga soo saaro way banaan tahay culimada kalena saasay uga hadleen marka masaladu mas'ala dhib lama mas'ala iska banaan wallahu a'lam جزاك الله خيرا.